madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo wafduusa hogaamiyo iyo qayb ku wayin gudoomiyaha baarlamaanka xubno ku tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo haan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo galinkii dambe geeka reetanka nagadi magaalada madaxda ku meel deerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo garoonka diyaarado Dr. Shaati Gaduud Airport wafdiga madaxweynaha hogaamiyaha mehe ka dhawaayay xubno ku tirsan lamada gol dowlad goboleedka koonfur galbeed saraakiil laamo amniga maamulka gobolka Bay kan degmada Baydhabo iyo qaybo shal duwan bulshada magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo socdaalkan ka maqnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ee maalmo qaaday ma yuusan ku galay sidii xal waara lanku deeri lahay khilaafkan dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble oo madaxweynaha ka guuleysaday sidii khilaafkaas lahan afjar lahay waniyo heli lahaayeen madaxdan ka sareysa dalka runtii waxay ahayd arrin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyaan dareenkooda ayna aad u dhibsanayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dawladda ay kala aragti duwanaansho ay sii jirto qof kasta oo Soomaali ah meel walba uu joogo aad buu uga xumaa runtii way dadaalayna sameeyeen ducayna sameeyeen aad ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen intaba Ilaahay waa aqbalay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo inta ka suganay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maysaasoo kaleed kulamo lanku hadalay geedi socodka doorashooyinka iyo sidii walanku wada lahayd dadka la ku musaafuriye magaalada Laascaanood ee maamulka Soomaaliland maysul weeldaday danjiriyaalka beela caalamka fadhi Soomaaliya oo ka horay wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee qaabilsan arrimo Soomaaliya ambassador James Iswan oo ballan qaaday qaramada midoobay intii kaalan la taabado kor ku jeysada doonaan sidii dadkaas la musaafuriye ee hadeeri magaalada Baydhabo ee gobolka Bay la handeersi lahay gargaar degdeg isla markaasna koonfur galbeed aan ku qabsooma lahayd doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed Baydhabo